Taliska booliska Soomaaliya ayaa shaaciyay in gacanta lagu dhigay eedeysano loo haysto in afartii bishan uu xaaskiisa ku dilay degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa hadda gacanta ku haya eedeysane Bashiir Cabdi Xasan oo horey xaaskiisa Salaado Faarax Cali ugu dilay degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir afartii bishan Juun ee 2021 ayaa lagu yiri qoraalka oo uu soo saaray afhayeenka booliska Soomaaliya Sadiq Aadan Cali. Qoraalka afhayeenka ayaa intaasi ku daray eedeysanaha oo aan horey u baahinay in lagu magacaabo Bashiir Cali Jaamac, laakiin aan ognahay in magaciisa runta ah uu yahay Bashiir Cabdi Xasan. Eedeysanuhu wuxuu wajahi doonaa cadaaladda hadduu Alla idmo, ayuu yiri afhayeenka booliska Soomaaliyeed Sadiq Aadan Cali. Booliska ma aysan shaacin halka laga soo qabtay eedeysanaha, sida loo soo qabtay iyo goorta la soo qabtay intaba. Bashiir Cabdi ayaa macallin iskuul ka ahaa iskuulka Hanti Wadaag ee degmada Warta Nabadda. Ehelada marxuumadda ayaa waxa ay sheegeen in si argagax leh uu u dilay marxuumadda, isaga oo madaxa iyo qaybaha hore ee jirka bir uga garaacay, taasoo keentay in dadku ay ka argagaxaan markii la arkay marxuumadda oo gacmaha ka xiran oo haddana mayda. Qoyska gabadha ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in bilihii u dambeeyay aysan lamaanahaasi xiriirkoodu fiicnayn, wax wada hadal ahna uusan ka dhaxaynin, taasoo labada qoys ay xal u waayeen, ugu dambeyntiina sababtay dilkan argagaxa leh.